jaaliyadda reer Somalilan ee ku dhaqan dalka kani UK ayaa waxa ay sameeyeen xaflad aad u ballaaran oo ay ku soo dhaweynayeen ama ay ku taageerayeen ururka ugu horreeyay ee ay dadka qurbo joogga ay taageeraan oo ah ururka KAH. Ururka KAH ayaa galbeedka magaalada London waxaa loogu sameeyey xaflad aad u ballaaran halkaasi oo ay ka soo qayb galeen jaaliyadda reer Somalilan noocyadeeda kala duwan, xisbiyada qaranka Jamhuuriyadda Somalilan iyo madax kale oo waxgarad iyo aqoon-yahanaba isugu jira. Haddaba dadkan reer Somalilan ee ka soo qayb galay xafladda ayaa dhammaantoodba waxay halkaasi ka soo jeediyeen hadallada wax ku ool ah oo ay kula talinayaan guud ahaanba dadka reer Somalilan, mid dalka jooga iyo mid dibadda joogaba. Hadalladoodina waxaa ka mid ahaa sida tan: xafladdan ayaa ahayd tii ugu horreeyay ee urur siyaasadeed looga dabaaldego dalkan UK. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan marti sharafka quruxda badan leh ee ka soo qayb gashay habeenkan caawa isku imaanshaha urur siyaasadeedka KAH ee hogaamiye u yahay hogaamiyaha ruuxiga ah maxamuud xaashi cabdi ayaan habeenkan caawa dhammaanteen daafaha ingiriiska gaar ahaana magaalada London aan iskaga nimidnay. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال iyo mariyooyinba dadka sharafta leh qaybta bartan isku timid maanta asaaskan ku aasaasan ururka siyaasadeedka KAH aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin sida sharafta leh aad nooga soo qayb qaadateen. talabaad waxaan u mahad celinayaa dadkii labadii bilood ee u dambeeyay xafladan qabanqaabadeeda ku jiray. waxaan u ducaynayaa ummadda reer Somalilan ee maanta kadib waxaan ugu ducaynayaa ictiraaf, waxaan ugu ducaynayaa badhaadhe, waxaan ugu ducaynayaa barwaaqo, waxaan ugu ducaynayaa amni iyo nabadgelyo. halkan u soo istaagay inaan u hambalyeeyo urur siyaasadeedka KAH oo ku soo biiray saaxadda Somalilan. ururada la furay runtii waxay ku yimaadeen niyad jab badan oo ka yimid ururadii jiray ama xisbiyadii jiray. xisbiyadii waxaad moodaa dadkeenu inaanay fahmin ujeedooyinkeenu samaysanay. xisbiyada waxaynu u samaysanay inaynu kaga baxno qabyaaladda, kooxaysiga iyo in la istakooro. aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa. maxamuud xaashi cabdi anu aan la soo shaqeeyey guddoomiyaha ururkan. maxamuud waxaan ku ogahay hogaamin, waxaan ku ogahay inuu yahay nin cabqari oo siyaasadda Somalilan ragga ugu cadcad uu ka mid yahay. maxamuud waa nin miisaan leh, waa nin hogaamintiisu Somalilan weliba dhaafsiisan tahay oo siyaasadda caalamkana wax badan ka og. lacagta qofka uu haysto ee jiibkiisa ku haysto xisbi inuu ku iibsado maaha. muhiimaddu waxa weeye haddii aad karto dadka in ay contribution bixiyaan. si aad baan ula dhacay. waxaan aad ugu mahadnaqayaa kooxdii faraha badnayd ay soo raacday markii aan uga sheekeeyey wixii aniga la iga sheekeeyey. horta marka ugu horeysa horiyo horaameed ururka aynu furannay ee aynu doonayno inuu meel gaadho aynu higsano ilaahay subxaanahu wa tacaala ee kii meel gaadha ee aynu meel dheer ku gaadhno allah inooga dhigo insha allah. jeediya xisbiga KAH guul iyo gobonimo marka ugu horeysa. mar labaadkana xasaabtii inoo soo martay waxaan filayaa siday inoo soo mareen iyo 10kii sano ugu dambeysay hawshii inay gasheen waxay gaadhay dad inuu nagaga dhinto. waxaa lagu abtirsadaa jihooyin kala duwan. waxaa la yidhaahaa xisbigaasi waa midig, xisbigaasi waa bidix, xisbigaasi waa communist amba waa shuuci. laakiin innaga reer Somalilan ururada la samaynayo iyo xisbiyadeenna jiraaba mid ku abtirsada jiha siyaasadeed haba yaraatee ma jirto. xukuumadda Somalilan iyo xisbiyada mucaaridka oo leedahay waxa la isku hayaa waa wax fudud. urur siyaasadeedkan KAH iyo urur siyaasadeedada kale laga furay Somaliland waxaan u rajaynayaa guud
mahadnaqa markaan intaa kaga baxo waxaan samayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo 3 wiig ka bacdina waxaan samayn doonaa guddidii fulinta guddiyadii laamaha mustambeedkii shirkaana insha allah waxaan ku qaban doonaa London dhammaan way ka soo qayb geli doonaan ergooyinka oo dhani halkaa waxaa lagu dooran doonaa guddoomiyihii iyo guddidiisii fulinta iyo garabkii haweenka ururka ka intaana insha allah waxaan ku dooran doonaa halkaa markaa waxaanu ka rajaynaynaa xisbigan inuu noqdo xisbi ka duwan xisbiyada kale oo dhan ee Soomaaliland isagoo fulinaya afkaaro iyo fikrado uu qabo aanu xogaal ka nahay siyaasaddu ammaan maaha la iskuma ammaano siyaasadda xoola lagama dhaqado oo lagama dheefo siyaasaddu waxa weeye in ummadda loo adeego oo wax laga bedelo nolosheeda maanta lana tuso berita tuka fiican nin wax badan ka qaban doona waxbarashada wax badan ka qaban doona caafimaadka iyo dhallinyaradeenna yaryar ee taariibka ama ku idlaanaysa ama xabsiyada lagu haysto Aynaawi Cismaan Ducaale TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Somaliland London